coronavirus ama COVID-19 waa cudur ka mid ah cudurrada safmareenka ah ee adduunka saameeyay. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka cudurkaasi soo gaaray saameyn ku yeeshay. Cudurkan markuu soo bilowday ilaa haddeer wuxuu maray dad aad u fara badan oo cudurka u liita, qaarkood waa u dhinteen, qaarkoodna wali waa la tacaalayaan. Soomaaliya waa wadan sabool ah, waana wadan u jilicsan saameynta cudurkaas safmareenkaahi uu keeni karo. qalabka caafimaadku waa yar yahay, cusbitaalada shaqada qaban kara waa yar yihiin. dad fara badan oo Soomaaliyeedna waxay leeyihiin xaalado caafimaad oo u jilcinaya in cudurkaani uu si sahlan u soo rido ama xataa uu geeri gaarsiiyo. waxaa muhiim ah inaan qaadano talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadku. waxaa cudurka fayraska ugu muhiimsan sida looga hortagi karo in marka hore la iska ilaaliyo, sababaha uu ku faafi karo ama ku keeni karana in laga hortago. taas ayaa ka muhiimsan daaweyntiisa. dhakhaatiirtu waxay caddeeyeen in loo baahan yahay qofka xanuunkan dareemaya inuu guriga joogo oo uu isku xayiro gurigiisa, oo dadka bulshada iyo meelaha isugu yimaada inuu ka fogaado, inuu gacmihiisa si joogta u mayro, in uu sanka xirto markuu meel babliga la joogo ama dad la joogo, iyo inuu ku dadaalo sida nadaafadiisa guud u ilaalin lahaa. cudurka hadduu haleelana waxaa lagula taliyay inuu la xiriiro meelaha loo sameeyay oo goobaha caafimaadka iyo lambarada khaaska ah ee laga wacayo. waxaan aad iyo aad u boorinayaa dadka Soomaaliyeed inay aad ugu dhaganugulaadaan talooyinka bahda caafimaadka, kuna dadaalaan cudurkaasi inay ka hortagaan inta uusan ku dhicinin, maadaama uusan lahayn daawo maanta lagu daaweeyo iyo talaal looga hortago midna. cudurkaani sida adduunka oo kale saameyn weyn buu nagu yeeshay xagga waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. intaasba way muuqdaan saameynta ay yeesheen. waxaana dadku aaminsan yihiin inuusan COVID-19 ama coronavirus uusan noqon doonin adduunku siduu ahaa intuusan xanuunkani uusan bilaaban. marar fara badan xanuunkani wuxuu ku faafaa aqoon darro, wuxuu ku faafaa taxadar darro, wuxuu ku faafaa ilaalin shuruucda iyo qawaaniinta iyo tixgelin la'aan shareecada islaamka iyo diinta ilaahay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray cudurrada noocan oo kale ah meesha ay ka dhacaan qofkii joogaan inuusan ka bixinin, qofkii aan joogin ama aan ku jirinina inuusan dhexgelinin. meeshii qofkii aan joogin inuusan meesha teginin waa qaybaha ugu muhiimsan oo cudurkan looga adkaan karo haddii la rabo in faafidiisa la joojiyo. waxaa kaloo muhiima iyaduna ah in nadaafadda guud oo qofka muslimka uu ilaaliyo, kana taxadaro inuu cudurkan u gudbiyo dadka intiisa kale. qofkii qof isagoo ogsoon cudurkan bulshada la dhex yimaadahi wuxuu la mid yahay qof u qastay inuu bulshada qayb ka mida dilo, sida ilaahay caddeeyay subxaanahu wa tacaala. qofkii qof dilaana wuxuu la mid yahay qof dadkoo dhan dilay. sidaa daraaddeed in tacliimaadka caafimaadka iyo tacliimaadka diinta islaamka la ilaaliyo labaduba waa muhiim. dad fara badan oo Soomaaliyeed baa ka hadlay saameynta uu leeyahay arrintaani waxbarashada oo aad iyo aad u muuqata iskooladii iyo jaamacaadkii iyo barihii waxbarashada iyo tii quraankaba in la fasaxay. waxaa kaloo laga hadlay saameyntiisa caafimaad iyo sida aynaan ugu diyaarsanayn shacab ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaan midna inaynu cudurkan la tacaalo haddaynaan dadaalkeena isu geynin. waxaa laga hadlay saameyntiisa arrimaha bulshada iyo xiriir la'aanta dhacday oo dadka ay kala fogaanayaan ama kala cararayaan ama mataqaana aysan isa salaamaynin. waxaanse anigu rabaa inaan ku soo koobo hadalkayga si gaar ah saameynta dhaqaale ee dalka uu ku yeeshay. cudurkan markii la ogaado inuu soo galayba waxaa markiiba bilaabatay sicir barar aan caadi ahayn oo badeecadihii asaasiga dadka nolosha u ahaa ay kor u kaceen. waxaa la qiyaasayaa bishii Abriil iyo May labadaba inay badeecooyinka qaarkood oo asaasiga ah ay kor u kaceen 5% ilaa 37%. arrintaas waxay muujinaysaa sida ay u adkaanayso dadka danyartaahi inay raashinka ama cuntada daruuriga ay heli karaan. waxaa kaloo taa garab socday in dadka qaarkii oo ganacsatada ahi inay u fahmeen inay si xun uga faa'iidaystaan, iyagoo laga yaabay inay suuqa geliyeen ganacsatadoo dhammaaha, iyagoo suuqa geliyay inaan badeeco imaanaynin iyo badeecadu inay yar tahay. qaarkoodna ay bilaabeen ixtikaar iyo xirasho cuntada asaasiga ah inay sameeyaan si waqtiga loo baahan yahay ay u qaaliyeeyaan.
dadaallo fara badan oo dowladda iyo shacabku galeenba waxay keentay in maantay raashin ku filan dalka u yaallo badeecada qiimaheedu korba ha u kacee waxyaalaha misaal u noqon kara waxaa ka mid ahaa daawadii gacmaha la marsan jiray gacmaha lagu nadiifiyo oo ahayd $3 covid ka hor maanta hadiiba la heli karo waxay maraysaa $15 iyo in ka badan oo macnaheedu tahay inay kor u kacday boqolkiiba 500 iyo wax ka badan sicir bararkaas waxaa la socday oo garab socday isaguna in dad fara badan inkamkoodu u istaagay maadaama ay ahaayeen dad xirfadlayaal ah ama dad maalin la nool ah oo noloshooda intay helaan $1 ama $2 ay maalinta u ahayd shaqadoodii u istaagtay darteed waxay keentay dadkaas inaan heli karinin income ay bixiyaan oo ehelkoodii iyo gurigoodii noloshooda ay ku maareeyaan shaqooyin bay si gaar ah u taabatay quteeladii hadday noqon lahayd goobihii caafimaadka dhismayaashii shaqooyinkii hoose shaqooyinkii qofku kaliya uu shaqaysan jiray iyo wixii la midka ahaa waxay keentay baqdin darteed in meelahaas oo goobahaas oo looga cararo makhaayado fara badan iyo hoteelo fara badan iyo goobo badan oo ganacsina ay markaa xirmaan dadkii u shaqaynayana markaa shaqalaan ay ku soo dhacdo iyadoo aysan jirinin meel dadka laga siiyo social services ama saacidaada dadka aan shaqada markaa haynin sida adduunka intiisa kale ku jirta dowladdeena gaar ahaan Puntland iyo dowladda federaalkuna aanay samayn karinin dhiirigelin dhaqaale oo ay siiyaan shirkadaha iyo dadka shaqadooda waayay arintaa waxay noqotay arin saameyn yeelatay hoosna u dhigtay dadku inay wax gadan karaan ama wax iibsan karaan waxa kale oo iyana aad u muuqatay xawaaladihii oo dadka Soomaaliyeed ku tiirsanaayeen inay iyaduna aad iyo aad hoos ugu dhaceen waxa la qiyaasayay bishii Abriil sida World Bank ay sheegeen inay 20% hoos u dhacayso laakiin haddaan aad u xuraamay waxa soo baxday ilaa 50% $2 bilyan oo ku dhawaad ayaa Soomaaliya dibadda uga imaanaysay sanadkii haddii $1 bilyan oo kamid uu istaago macnaheedu waxa weeye 50% xawaaladihii dibadda ka imaanayay inaynaan awood u lahayn inay dalka soo gaaraan ama aysan imaanaynba taasina waxay saameyn toos ah ku yeelatay noloshii qoysaska iyo guryaha miyi iyo magaalaba sida la socotaan dalkeenu waxa uu dhoofiyaaba la yiraahdaa sanadkii waxaan ka badnayn 300 ilaa 400 milyan wax ku dhow waxaan si dibadda ka soo gadanaa wax 2 milyan ku dhow farqiga u dhaxeeya exportigeena iyo importigeena ama waxaynu dhoofino 300 milyan 400 milyan ka badnayn iyo waxaynu wax ku soo gadanayno oo ilaa iyo 2 bilyan ah waxa dabooli jiray xawaalada dibadda ka timaada xawaalada markay istaagto waad garan kartaa waxa soo bixi kara inayna awood u lahayn badeecada aan dibadda ka soo gadanayno in badan oo kamid ah inaan soo gadano taasina waa saameynta kale oo dhaqaalahan ay keentay waxa kale oo iyana muuqatay in dakhligii ay dawladuhu heli lahaayeen oo cashuurta ku heli lahaayeen oo ganacsada faa'iidadeeda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ka qaadi lahaayeen iyadoo inuu hoos u dhacday taasoo keenaysa dawladda dakhliga ku tala gashay inuu yaraanayo waxyaalo fara badan oo khadamaad ah oo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo magaranaysa amniga oo wax ka qaban lahaydna inay saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha hoos u dhacay waxa kale oo iyana muhiima in si gaar ah loo xuso in dad fara badan oo shacabka ka mid ihi ay gaareen inay iyaguna aysan noloshooda maalmeedka aysan maareyn karinin waxa intaasi weesho muhiim ah dhaqaale ahaan inay qaybo fara badan oo ka mid ahaa sektarada ganacsiga ayaguna dumeen waxa aad u muuqda sektarkii duulimaadka iyo shirkadihii ka shaqayn jiray oo dhan inay suuqa ka baxeen waxa iyana aad iyo aad u sii daciifahaya sektarkii isu socodka iyo transportationka gudaha waxa aad u sii daciifaya sektarkii caafimaadka waxa aad u sii daciifaya sektarkii waxbarashada iyo iskooladii iyo wixii la midka ah waxa aad u sii daciifaya sektarkii waxgalagashada iyo xoolo dhoofinta intaas oo dhani waxay saameyn toos ah ku leedahay dhaqaalaheena gaarka oo awalba aad iyo aad u liitay wayna adag tahay qaybahaas ka mid ah ganacsiga inay dib u soo noqdaan ama mar dhow ama inay gabi ahaanba ay dib u soo noqdaan dad fara badani waxay aaminsan yihiin in uu coronavirus ama covid-19 kulligii musiibo ahaa laakiin dhinaca kale marka laga fiiliyo waxaa cad in uu soo kordhiyo waxyaalaha qaarkood oo la oran karo waa iijaabi ama positive ama waxyaalo muhiim u soo kordhiyo waxaa ka mid ahaa lacag ku dhowaad $1 bilyan ayaa nooga bixi jiray qaadka lacagtaasoo si kaasha dalka gudihiisa uga bixi jirtay waxaa la rumaysan yahay qaadka inuu hoos u dhacay cunudiisa iyo keenistiisuba wax ku dhow laban laab ama wax ku dhow 60% inuu hoos u dhacay qaadka wali waa jira
wali waa la gadayaa wali waa soo galaa laakiin waxaa aad hoos ugu dhacay dadkii cunayay waxaa kaloo hoos u dhacay quantity-ga imaanayay taasna waxay keentay ugu yaraan half ka mid ah lacagtii nooga baxaysa ama ugu yaraan 3 meelood 2 meelood inay noo dhigantay taasoo lacag aad iyo aad u ballaaran ah arrintaasi saameyn fiican ayay lahayd waxaase wali meesha ka maqan dadkii ka shaqayn jiroo dan yar u badnaa in loo leexiyo sectors kale ama ay helaan la tacaalid iyo gacan qabasho ay uga bixi karaan dhinacaas qaadka ay ugu wareegi karaan qaybaha kale oo wax soo saarka ah oo macnaha iyaga u leh dalkana macno u leh arrintaasi waxay arrin muhiim ah oo aad iyo aad loo dareemi karo maadaama ay ahayd cash isagoo cadaan ah gacanteena ka baxayay waxa kale oo iyana muhiim noqotay in dad fara badan ay u leexdeen inay isticmaalaan inay sameeyaan ama ka shaqeeyaan sectoriska ama qaybaha dhaqaalaheena uu ku tiirsan yahay oo ay ka mid tahay beeraha oo ay ka mid tahay xoolaha oo ay ka mid tahay kalluumaysiga oo ay ka mid tahay faleenka iyo wax la midka arrintaasi waxay abuurtay in dib la isugu noqdo oo waxaynu haysano laga shaqeeyo inta awal laga fakari lahaa inaynu waxaynu cunano la soo degno fursad badan baa muuqata oo xoog lagu saari karo beeraha oo aynu isaga filaan karno ugu yaraan maadaama xoolihi aan haysano kalluunkiina aan haysano inaan dhinaca khudaarta iyo dhinaca dalaga la cunaba aynu isaga filaan karno arrintaasi muhiim weeye hadday dowladaha iyo maamulada iyo dowladda dhexba ka shaqeeyaan in aynu dalaga aynu isticmaalayna beerano oo dadku intay baastiya bariid sugi lahaayeen ay xoogga saaraan galleydii iyo masagadii iyo sisintii iyo mataqaana qaybihii kala duwanaa ee ma garanaysaa cuntada ah dalkeena oo asaasiga ahaa ayaad moodaa inay aad iyo aad muhiim uga tahay in lagu mashquulo wax ayna inagu la soo bixinin dal kastana wuxuu haystay isagoo gaar u dhigtay ummad kasta waxay ku nooshahay ama asaas oo waxay la soo baxdo inaynu marka ka fakarno waxaynu soo dhoofsanno waxaa ka muhiimsan inaan xoogga saarno waxa dalkeena ka soo bixi kara oo nooc kasta ah haddii waqtigii hore dadku beeraha ay ka leexdeen oo bakaartii iyo cuntadii kaydsiga ay ka baxeen oo ay u leexdeen wax laga gadan karo sida lindhanaan iyo wax la mid ah maanta waxaa muhiima in loo noqdo dalagyadii asaasiga ahaa oo nolosheena ku xirnayd meeshii qofku baasta iyo bariid ka cunayana inuu masago iyo soor iyo galley iyo canjeelo iyo wax la mid ah uu ka cuno ayaa dhaqaalaheena ugana muhiimsan nolosha caafimaadkeena dalkeenana uga muhiimsan inta kale oo muhiimka ah oo soo baxdayna waxa weeye baahida caafimaadka dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa dibadda u tagi jiray caafimaadka dhaqaale aad u fara badan oo 100 milyan baa nooga bixi jiray maanta fursad baa muuqata ganacsatadeena ay ka shaqeyn karaan inay caafimaadkeena gudaha ka shaqeeyaan dadkii dalka madaxda ka soo noqday heer federaal iyo heer hoose oo aan ka shaqaynin shalayto dalka inuu yeesho goobo caafimaad oo horumarsan ayaa maanta ku khasban dalka inay joogaan dadku waxay haystaan ay la wadaagaan waxay marka taasi ku dhiirigelinaysaa madaxda maanta heer federaal iyo heer dowladaha dowladaha xubnaha ka ahba inay xoogga saaraan oo ka shaqeeyaan sidii arrinta caafimaadka loo horumarin lahaa dhaqaalihii dibadda nooga bixi jirayna dhaqaalaheena gudaha loogu hagaajin lahaa in mashiinka qofka neefta ku saacida la keenahay 2,000 ama 3,000 dollar kama badna midka ICU-da oo qofka wadnihiisa qofka sanbabkiisa ka shaqaysiinayana waxa laga yaabaa 25 ilaa 30 kun uusan ka badnayn dad fara badan oo goobo caafimaad leh ayaa awooda dadkeenuna intay dibadda aadi lahaayeen gudahay isticmaali lahaayeen waa fursad weyn oo soo korodhay oo ah iyadana in xoog la saaro arrinta saddexaad oo iyana muhiimka waxa weeye oo saameyn weyn ku yeelanaysa xanuunkan iyo faafidiisa ugana faa'iidi karna inagu waxa weeye in la wada shaqeeyo hadday noqon lahayd heer federaal iyo hadday noqon lahayd heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in xoogga la saaro inaynu dalkeena iyo dadkeena ku kalsoonaano dadkeena inaan isu soo dhaweyno inaan ka wada shaqeyno maslaxadda iyo badbaadinta shacabkeena maantay waa maalintii lagu xisaabtami lahaa si dhaqaalaheena u badbaado si dadkeena u badbaado si hantideena u badbaado si khayraadkeena uga faa'iideysano inaynu gacmaha isu qabsano waliba xilli roobaadka hadda lagu jiro iyo wax ka qabashada ayaxa iyo beerashaduba waxay keenayaan inaynu xagga dalaga isaga filaano dalal fara badan baana ku guuleystay inay cuntada asaasiga isaga filaadaan ugu dambeyn waxaan leeyahay waxa iyana muhiim noqon doonta in dadka danyarta cashuur dhaaf loo sameeyo oo cashuuro fara badan oo sicirka kor u qaadiya badeecada in la yareeyo dadkeenuna wuxuu ku caanbaxay inuu iskaalmeeye shacabkeena waxaa la rabaa inay danyartooda ka warhayaan loona sameeyo sanduuq gaar ah oo ka shaqeeya sidii kuwii qaadka ka shaqaynayay xirfad kale loogu abuuri lahaa sida kuwa danyarta ah
wax loogu samayn lahaa iyo sida dadka ehelka ama wada degan degaanada iyo gobolada iyo degmooyinka ay isu garab istaagi lahaayeen una wada shaqayn lahaayeen waxaan rajaynayaa ilaahay inuu covid-19 naga badbaadiyo dadkeena iyo waxaan u dardaarmayaa inay ka shaqeeyaan siday isu badbaadin lahaayeen kahortag fiican ay la yimaadaan dowladeenna iyo maamulkeennana waxaan kula talinayaa inay ka shaqeeyaan sidii saameyntiisa loo yareyn lahaa